culammadu waxay in muddo ah la socdeen wararka la xiriira ninka la yidhaah cabdiweli sheekh cali cilmiyare oo jooga gaalkacyo waxaana ka soo gaarahayay culammada hadallo khatar ah gafna ku ah diinta islaamka oo ay ka mid ahayd in laga kor yeelay aysan waajib ku ahayn salaadaha iyo axkaamta diinta islaamka haddana wuxuu ku daray inuu soo bandhigay sawir nin la yaqaan oo la yidhaah bilow sheekh xuseen uuna leeyahay ninkaani waa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uuna soo bandhigay iyadoo sawirkaas lagu sallinayo lana barakaysanayo haddaba culummadu baaritaan iyo iswaraysi kadib waxay soo saarayaan bayaankan kow culummadu waxay caddaynayaan in uu ninkaas cabdiweli diinta ka baxay waayo wuxuu nebinimadii siiyey qof aan ahayn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam nebi moxamed oo ku dhashay maka kuna aasan madiina qaala tacaala waman yakfur biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir faqad dalla dalaala baciida labo waxay kale oo culammadu caddaynayaan in cabdiweli uu meel kaga dhacay xurmadii iyo sharaftii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi اdunya wاlaakhira waacadda lahum cadaaba muhiina waqaala tacaala wاladiina yu'duuna allaha warasuulahu wاladiina yu'duuna rasuula allahi lahum